دن ولجدا عروي الكودا سلون سديسي سدابن دن ولجدا عروي الكودا فلفل دم بسوم كودا عروي الكودا جمع لكم كودا عروي الكودا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joognaa Hargeysa bisha 3aad ee March 2021 waa 16 dhamaantiin meel kasta aad joogtaan baa afar turbuuro wanaagsan inaga oo ku jirna xuskii afartan guurada ka soo wareegtay maalintii lagu dhawaaqay SNM ama dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed oo magaalada London laga dhawaaqay. qaybtii ka horeysay waxaynu ku joojinay shirweynihii afraad ee SNM oo 3 ilaa 9 bishii August 1948 socday magaalada Jigjiga. haddaynu mid iyo laba kaga anbabaxno ama ku sii kaabno shirweynahaas go'aamadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in la kordhiyay muddadii kala guurka shirweynayaasha oo ahaan jirtay 1 sano ama 2 sanadoodba mar baa shirweyne la qaban jiray. markan xogaa waaya aragnimo ah ayaa la taransaday, dabeedna shirweynaha waxay la noqotay in 2 sanadood laga dhigo muddadaas. shirweynuhu wuxuu go'aamiyey in muddada kala guurka ee ay SNM xilka haynayso marka dalka la xoreeyo inay noqon doonto 4 sanadood. mar dambe ayaa shirweynayaasha dambe lagu bedelayaa muddadaas. waxaa la go'aamiyey in hoggaanka ururka ka koobnaado gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha guddida fulinta. waxaa la baabiyey jagadii xogayaha guud, waxaana la go'aansaday si loo ilaaliyo midnimada ururka iyo hoggaankaba in 3 xil hal qof la isugu dhiibo. xilkaasoo loo doortay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi markii ugu horeysay oo uu haynayay 2 sanadood. arrintii guurtida ayaa iyadana la soo dhigay. markii uu shirweynihii dhammaaday waxaa loo ambabaxay ilaa qayrta doonbareley wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha ururka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi. arrimo yaryar oo halkaa ka taagnaa ayaa la maareynayay. dabeedna halkaa waxaa lagaga dhawaaqay golihii guurtida ee ugu horeeyay Suldaan Xasan Bulbul ayaa madax u ahaa. shirweynihii labaad wuxuu ka dhacay Rabaso. gudoomiye Axmed Muiman wuxuu soo wakiishay Ibraahim Magaag Samatar. Rabaso galbeedkeeda meel dooxada Daarmaadin la yiraahdo ayaa lagu qabtay. xasan faarax Ducaale xasan midmaax oo gabaya ahaa ayaa markaana gudoomiye loo doortay. shirweynihii 3aad oo 86 ka dhici lahaa Laanqeyrta iyo kii afraad oo 87 ka dhici lahaa Xarshin, labadaas ma dhicin. markii gudaha la galay la soo baxay 1988 May iyo June guurtidii Hargeysa ka timid oo aan dhismo rasmi lahayn laakiin tii in badan magaca guurta ku shaqeynaysay ayaa cadaro isugu timid. dabeedna waxay ku dhawaaqeen golaha guurtida oo ah kan ilaa maanta dhisan. intaa haddaynu kaga baxno shirweynihii afraad oo tan maalinta hore idiin sheegay inaynu geli doono shirweynihii 5aad iyo kii 6aad ee ururka. waxaan si jeclay in yar ka horeysiiyo dhismihii ciidamadii xoreynta SNM ama abaabulkii arooskii cududii huweysnayd ee SNM naftood hurayaashii halgankii dib u xoreynta qaran ee dalka iyo dadkaba doorka la yaab kale ka ciyaartay. ciidanka qaranka SNM unug iyo saldhig iyo aasaas waxa uu ahaa guutadii afraad ee gaaskii Axmed Guray ee jabhaddii Soomaali galbeed oo jiida wajaale dusheeda ku beegan deganaa. gaaskaasi ujeedooyin badan buu guutadaasi ujeedooyin badan bay lahayd. mar waxay guuto dagaalamaysay oo la dagaalamaysay nidaamkii Itoobiyaanka ah ee dalka haystay. waxay ahayd guuto ay dadku ugu talagaleen inay hub ku helaan oo jabhadaha qaarkood oo dhibi jiray
iyo nidaamkiiba ay iskaga ridaan laakiin tii waxay nidaamkii ku qanciyeen oo ka dhaadhiciyeen inay jabhadaas sidaa u furanayaan taasoo keliya ma ahayn galbeed ilaa bari ayay taxnaayeen 5 February 1982 ay jabhadaas talowday 2-3 maalmood halkaa xuduudda la isku haysto Itoobiyaanka ayaa la wada hadlayay si ay u soo gudbaan dabeedna 8 February 1982 ayaa si rasmi ah xerada loo furay sida aan ka guntay Colonel Cabdillaahi Ibrahim oo berigaa ka mid ahaa dhalinyaradii ciidankaa la socotay ciidankaa waxaa hormuud u ahaa Maxamed Cali Faarax iyo Axmed Sheekh Faarax Dhuxul oo Dhuxul ahaa taliyaha guutada afraad Maxamed Cali Faaraxna isagu taliska guud ee gaaska Axmed Gurey iyo aasaaskii iyo abaabulkii ciidankaa lagu furay saldhigga Durya dad badan baa guutada ka tirsanaa loo kala bato laakiin dadkiisa inta badan way joogeen iska dhaaf Soomaaliya ciidamo Oromo ah ayaa ku jiray oo kuwii Sheekh Bilisa ah gaar ahaan Maxamed Cali la socday saasay guutadaas ku bilaabantay bishii August dabayaaqadeedii halkaa Garbacsi dushiisa la isugu tagay aroor hore dabeedna ciidamo ayaa laga qaaday Durya ciidamadaasi waxay kala degeen oo saldhigyadii raaca labaad laga furay Dibiile iyo Xarshin oo isku sidkana Laanqeyrta Awaare Gaashaamo iyo Baalde raacii ugu horeeyay intaas ayaa laga furay dabeedna ciidanku uu isbedbedelayay marbuu ciidanku ahaa 5 qaybood mar dambuu noqday 1aad iyo 2aad iyo 3aad iyo 4aad iyo 5aad markaa ka yar horeysay 2 ciidan buu ahaayo galbeed iyo bari iyo teknikada oo dhexda taala hadba cidii u baahataa ay ku dagaal gasho dabeedna markii 1aad 2aad 3aad 4aad 5aad la sameeyay wixii intaa ka dambeeyay ciidamadu way baaheen way bateen guutooyinku way farabateen ana la iga xogaalsan oo jiida waan ku yaraa hore xagga hoggaankan u badnaa laakiin tii ciidanku sidaas ku abuurmay dad naftooda horayaala waxaa jiray 1982 jinacsani laga furay dugsigii tababarka ee ciidanka Baabiliin 83 laga furay Awaare in 84 tababarkii ugu weynaa ama dugsigii tababarka iyo xaruntii ururkaba kalfadhi halkaa lagu qabtay April 84 lagu go'aamiyay sidaana dugsigii ugu weynaa oo Awaare noqday waxaa jiray dugsiyo tababar oo halkaa qabri bay hoosteeda ku yaalay Hundaha oo lagu tababari jiray ama lagu qaadan jiray tababarada la xiriira dagaalada magaalada ama urban gorilla wixii la oran jiray dugsiyo yar oo kale oo fara badan way jireen oo qaybaha kala duwan ka kala dhisan oo ka kala tirsan sidaas xuduudda hubaysnayd ee SNM ku soo bilaabantay si ikhtiyaariya oo nafur leh ay mujaahidiintu u soo gashay si geesinimo leh oo xaraga leh ay u dagaalantay naftooda iyo nafta caruurtooda iyo nafta reerahooda waa horeen cidina wax ma siin jirin raashinka qalalan ee xerada ay ka cunayaan iyo xoogaa yaroo wixii rasaas ay heli karayaan ama xoogaa yaroo dawaa ay heli karayaan ayay ku noolaayeen SNM kumay tiirsanayn oo kaliya ciidan xero jooga waxay ku tiirsanayd in marka sanqali dhacdaba dadweynuhu meel ay joogaan baa ay ka gurmadaan dhowr jiidood baa laga dagaalamayay jiidihii dibadda waxaa looga dagaalamayay taakulayn iyo lacag iyo dawooyin iyo arad iyo dhar jiidihii Yurubta galbeed waxaa looga dagaalamayay banaanbaxyo warbaahin iyo siyaasad jiidihii gudaha waxaa laga dagaalamayay qaab kastoo lagu dagaalami karo ama dagaal hubaysan ha noqoto ama mid wardoon ha noqoto intaas oo dhan qaabkaas ayay mujaahidiintu dagaalamayeen ereyga mujaahid mar dambu baxay 1983 magaalada Addis Ababa hoggaanka ururka Cabdillaahi Yaasin baa joogay
iyagoo Iiraan tagay dabeedna literature badan ayay keeneen qoraallo badan oo jaraa'id u badnaa dabeedna ay ku tiilay المجاهد أنا حسوستا مجاهدين الخلق يا مكسي حسوستا dabeedna iyadoo markii hore naftii hore iyo halgamaa iyo la odhan jiray mujaahidiinta berigaasi ereyga mujaahidna soo baxay wuxuu socdaba kolkii hore bilowgii mujaahid baan ahayn markii dambe qoladii hubaysnayd mujaahidiintii hubaysnayd ayaa sheegatay oo u badnayd una arkaysay inay keligood halkan ku gaar ku yahay waa dhaqanka Soomaalida in dagaalka loo yaqaano xabadda ee dagaalku ugu badnaa oo ku warfaafin joogay iyo ku dhaqaalahayay iyo ku war doonayay iyo ku war keenayay iyo wax oo dhamiba sidaas ayay xuduudda hubaysnayd ee mujaahidiintu ku hawlgashay ku dhaawacmeen ku naafoobeen ku shahiideen ilaahay intoodii shahiideen naxariistii janno ha ka waraabiyo ilaahay inta naafada agoomaha iyo intaana ilaahay gargaar iyo waxsan ayaan u weydiinaynaa sidaasuu ku bilaabmay dambiisha yar ee halkaa ka bilaabantay ayaa dalkoo dhan wada gaadhay markaanu ka baxnay shirweynaha afraad markaanu ku jirnay waxaa joogay cabdisalaam gorgor oo ahaa wakiilka SNM ama taliyaha aagga dhexe ee mustaxiil waxaa joogay Sheekh Ibraahim Maxamed Yarow oo isaguna ahaa wakiilka ama taliyaha aagga koonfureed ee Baarey sidaasuu ciidanku u baahay oo u fiday qaybtan waqooyiguna aaggan waqooyiguna laba u qaybsanaa qaybta Burco qaybta 12aad iyo qaybtan galbeedka oo ahayd qaybta 11aad qaybta 11aad ee aagga waxaa ku kala jilaa ceergaabo saldhigga ceergaabo iyo saldhigga berbera intaa haddaynu soo koobno cudubdii hubaysneed ee SNM iyo sidii ay u samaysantay waxaan jeclahay in waxoogaa aan badnayn waayo aad buu u dheeriyey marka laga sheekeynayo shirweynaha shanaad in waxaan badnayn aan ka sheego shirweynaha shanaad wuxuu qabsoomay 87kii waxa ahayd inuu qabsoomo 86kii August buu xidhmay markaa September 86kii inuu qabsoomay maamulkii markaa jiray ayaa soo jeediyey in 6 bilood dib loo dhigo guddiga fulintu inay soo jeedisaa 6 bilood in loo dhigo dastuur bay ahayd qaladku wuxuu ku jiray in guddiga fulintu go'aan ku gaadhay dabeedna golaha dhexe halkii laga fadhiisin lahaa oo ka ogolaan lahaa ama ka diidi lahaa in la yiri golaha dhexe saxiix laga soo guro dabeedna saxiix laga soo guray dabeedna shirkii sidaa lagu qabtay wuxuu ku qabsoomay magaalada Harar 28kii bishii February ilaa 10kii bishii March kasoo qaybgalkiisu ma fiicnay shirweynahaas reer qararo oo bari u xigay kama soo qaybgalin saldhigaasi markaa muu jirin saldhigii Araabi isaguna sidaasoo ahaa oo dhowr qof halkaa joogay ayaa iyaguna tallaabay labadaas saldhig way ka maqnaayeen saldhigii mustaxiil Cali Wardhiigley oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka ururka 4 loo doortay gudoomiye Axmed Sumay fiicneen dabeedna waxoogaa khilaaf halkaa ka dhashay ayaa ilaa aagga mustaxiil iyo aagga dhexe labadaba gaadhay dabeedna iyagana kasoo qaybgalkoodu waxba mu ahayn ishaysadka SNM isna maalmahaas soo bilaabmay inta aanu shirweynuhu furmin muranka badanina wuxuu ka dhacay guddiga fulinta iyo dhismaheeda aad looguma murmin shirweynahaas maadaama kasoo qaybgalkiisu aanu wanaagsanayn waxaanu go'aansanay inteedii yareeda joogtayna annagoo kamacaysaysanay inaanu ka baxno waxoogaa ballama baa la galay inuu gudoomiye guddiga fulinta bedelo in gudoomiyaha la soo celiyo caradii Cali Wardhiigley loo qaaday waxa kamid ahaa in shaqadii gudoomiye ku-xigeenka baa anagoo aan sugayn aan baabiinay sidaasuu shirki ku dhammaaday 10kii March
21 maajna kalfadhigii koowaad ee caadiga ahaa ayaa bilaabmay. guddidii fulinta ayuu soo dhigay guddoomiyuhu. 20 cod baa diiday, 14 baa ogolaaday, midna uu ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codaynin. ku noqaa lagu yidhi 3-4 cusub la maqnaa uu soo celiyey, isla iyadii sidii soo celiyey. dabeedna anagoo ka soo baxnay shirweyne iminka guddoomiyaha cod qaada weyn la noqon weydayo waxaa la yidhi sidaa ay tahay lagu sii daayo. 20kii aanu ku diidnay iyo 14kii ogolaaday, 34kaas aanu ku ogolaanay iyo guddoomiyaha aan codaynin. sidaas ayay guddidii fulintu ku gudubtay. sida ay aniga ila tahay ayuu murankii SNMna ku bilaabmay oo laga yaabo in ilaa maanta aynu joogno in dadka qaarkii wajida ay ku kala dadbaan. shirweynaha 7aad ee SNM, shirweynaha 5aad ee SNM waxaa la kordhiyey muddadii kala guurka shirweynayaasha 3 sannadood ayaa la kordhiyey. xaalad aan caadi ahayn ayaanu 3 sannadood ku jirnay. waxaa markhaati kaaga bisha Maarch 21keedii kalfadhigaa furmay. waxaa ahayd 6 kalfadhi inay dhacaan oo 6dii biloodba mid dhaco. kalfadhigaa Maarch wuu dhacay, macnaheedu waxa weeye noloshu caadi bay ahayd. kalfadhigii 2 Oktoobar heer ka dhacayna 7kii wuu dhacay oo ay ahayd inuu nolol caadi ku jiro shirweynuhu. February 22keedii 1988 oo aan dhowr bilood ka February, March, April and May geli doono dalka. shir qayr caadi, kalfadhi qayr caadi ayaa dhacay. February 12 February 89kii anagoo balguuda jooga kalfadhi kale oo aan caadi ahayn ayaa dhacay. marka 6dii kalfadhi caadiga ahayd ururka ee dhici lahaa, 2 caadiya, 2 aan caadi ahayn iyo 2 kale oo caadi ah intaasaa dhacday. dabeedna waad garanaysaa gudagalkii marka lagu daro, murankii dheeraa marka lagu daro, waxyaabahaas oo dhan isku daro nolol qayr caadi ah ayuu urur ku jiray. dabadeedna kalfadhiga waxaanu qabanay awaare, waana la dhexdhexaadiyey. guddidii fulinta oo 6 ahayd 3 iyo 3 baanu kala qaadanay. gurmud laamaha dibadda ka yimid baana soo dhex galay. maxamed cali faarax, cabdiraxmaan axmed cali, ismaaciil hurre Boobe, ibraahim magaay, ismaaciil doole iyo qaar badan oo kale oo Mareykan iyo Ingiriis iyo Khaliijkaba ka yimid. sidaasaanu shirweynaha 5aad ee SNM kaga baxnay oo uu taagnaa ilaa 31 March 1990 oo shirweynihii 6aad lagu qabtay magaalada Beledweyne. 151 ergey baa kasoo qayb galay. way ka yimaadeen laamaha dibadda, jiidaha hore ciidamada ka yimaadeen, xafiisyadii maamulka dhexe ka yimaadeen, talisyadii ciidanka ayay ka yimaadeen. magaalada Herar buu ku qabsoomay. isaguna sidaas ayuu ku dhammaaday oo aanu ku galay shirweynihii 6aad oo 31 March ilaa 14 April ka socday Beledweyne. intaas ayaan ku soo ururinayaa anoo jecel inaynu mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 goor oo dambaba isku soo noqon doono oo aynu kaga hadli doono waayihii SNM ay ku soo dagaal gashay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhaqaaqa dalka dadka u dhololay, dhaqaaqa